بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رحمة المبعوث للعالمين سيدنا ونبينا محمد. أما بعد مقعي وعبد الرحمن حسن محمد waxaan ka socdaa isbitaal la yiraahdo Ikram Clinic anigoo u qaabilsan qaybta sonology-ga mise ultrasound-ka. barnaamijka maanta aad baan u faraxsanahay ku saabsan breast cancer awareness. waa barnaamij aad u faa'iidnay oo aad muhiim ah. groupka Xasan Dhowr waa u mahadcelinayaa barnaamijka soo qaabiyeen. waa barnaamij aad iyo aad ugu baahan shacabka in markaas loo soo bandhigo. waana uu mahadcelinayaa walaalayaalka soo bandhiga barnaamijka aad ku quruxda badan. insha Allah waxaan rajeynayaa in ay wada doonaan because of breast cancer awareness markii la yiraahdo Soomaaliya dadka kama haystaan يعني concept fiican. waxa muhiim ah in la wacyi geliyo oo even bil kasta oo يعني October oo يعني la wacyi geliyo dadka dhibaatooyinka leeyahay la wacyi geliyo iyo qaabka faafi kara iyo sidii laga hortagi karo waa muhiim. marka waa mahadsiin saxdhoor barnaamijkan asi wadaano iyo barnaamijka fiican oo rajeynaya insha Allah. waxyaalo waxa jira oo factories oo qayb qaadan kara barnaamijyadaas oo يعني oo kamid ah يعني sida qofka obesity-ga oo kala perimeter janjiga oo kala in qofka weightkiisa oo yahay oo kala iyo sidoo kale in qofka sameeyo kala يعني regular exercise diet balance sameeyo waxyaalahaas oo kala qayb qaadan kara in kortago la sameeyo kala inaas nuujinto daawooyinka qaar oo la sameeyo la joojiyo all that kind of thing waxa qayb qaadanayaan in la joojiyo breast cancer oo yimaado. marka waa ku mahadsiin barnaamij aad dheer waa meesha lagu soo koobi karo.